هذا أنا دلي فراك قاد محاك قال يا ذيك قولي ولا بالك كو آمس مش قاد كل هذا ويقدر قعدتن في وين وجهتن إنا لله وإنا راجعون وروحنا قعوي كوين وين دافت والمقال كسي شير قال المقال كان هدوك سو قالوا شيرتي لايك تو فري وي سي تابا سida arkaysaan 24 saacadood u dambeeyay odagana horta baraha bulshada haystay odagan iyo inankiisa iyo islaantiisa ayaa horta barihii bulshada haystay saxaafadii horta soo saxaafadii dalkuna way waalatay cid walba waa la iska soo wareysanay heer waxay gaareen inay faamiladii ka dhex shaqeeyaan oo dhahaan haye maxaa tiri aabe hooyo maxaad la tiri oday warkiisu ma beenba maxaa ka jira heerkaasaan maraynaa waxaaba ka sii darantaa mucaaradnimadii meel kasta waa laga raadinaya islaamba dixda burca ku jabtay yaa jabiyey muuse bixi baa jabiyey inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun war mucaaradnimada inaa sida mucaaradnimada sidii aan ku ogeyn maxaa laga bedel bal qof social media isticmaalameed aragtay maanta oo dhan halkan la soo fadhiya war islaam baa jabtay yaa jabiyey muuse bixi baa jabiyey oday baa inankiisii soo xidhay yaa soo xidhay dowladda muuse bixi baa soo xidhatay war cid walbaba la soo xidho ama qolo kastoo is soo dacweysa haddii muuse un dusha laga saaro هذا السنة دولكم دولة لغمان نقول سيدانو دولة لغمان نقول كرو بدأ حوينا كستو دولكم صوف فلان دبعتها صحيح سنايس مركا هذا وحينون من كل ياتون إنا ندعونه وندبانه توكتي مقرانسا إسلام هذا في شري إميلها ويشتاق شري بخارة تبسين شري دكامة تبسين شري إنا ندبانه عين بعد ما ليسمو يديني حتى ورقفكم حال وصل حريه محو سميه سحف حتى دير الحرايمك وحالونا سحف هي المحل واحد magacaasun baa laga raadinayay qabiilkiisii war saxafigan muxuu sameeyey muxuu dembi galay haddii taa la isweydiin lahaa dadku waxbay fahmi lahayn qof waxaad arkaysaa soo waraysanaya oday yaro caadifadaysan odayga waxaa laga yaabaa hadaladiisu inuu shacabka kicinayo ama inuu dad quseeyo ama inuu dad magaraysa bushgaraynayo inay dadkaas dhibaato sameeyaan haddii odaygii iyo saxafigii waraystayba lasoo xidho ee barnaamijkan soo faafiyey xukuumaddu waxaa leeyahay maxay u xidhay dadkii war xukuumaddu waa inay ka shaqeyso ama ilaaliso wixii dadkan kicinaya waa inay ilaaliso qof kasta oo magaraysa ay bulshada isku diraya ama tafaraaro ku kala ridaya ama dab ka dhex shidaya ama saxafi ha noqdo ama suldaan ha noqdo ama salaadiin ha noqdo inay xukuumaddu soo xidho waa khasab wey waa waxa loo sameeyey waxawey saxaafadda hadda dalka ka jirta hadday wadamadan hormaray ay joogi lahaayeen qaarkood 30 sano xadhigaa lagu xukumi lahaa waayo wadamada hormaray adeer lama ogola inay saxaafaddu soo deyso wax bulshada kicinaya ama in qof la soo waraysto shacab kicinaya ama dad gaara intuu la hadlayo odhanaya dhibaato iyo mushkiladaa sameeya maanta saxaafaddii dalka ka jirta waxaad arkaysaa dad gaara intay soo waraystaan ay dad kaloo gaara intay la hadlaan bay odhanaya reer hebel waa inay magaraysaa meeshan ka kacaan ama reer hebel waa la gumaystaa waa la haystaa marka ma dadkaasaa marka la eeganaya ilaah baa idinku dhaashay ma dadka noocaasa baa la eeganaya hadhowtana qaar waxaad arkaysaa u doodaya ku odhanaya hebel maxaa lagu xidho iminka odagan hadda baraha bulshada haystay 24 saacadood u dambeeyay dad baa wax ka dayay mucaaradnimo ka dayay oo laa xukuumaddu maxay u xidhay ninkan magaraysa buuga qoray maxay xidhay odaygan halkan wuxuu taagay war inankayga anaa xidhay maxaa kaa galay bal qac ka weyntaa ma jirtaa odaygii dhalay bal war hadalkan halkaas ka dhaafi anaa wiilkayga xidhay ee wax aad shuqul iyo shaqo toona ku leedihiin ma jirtee ordo shaqeeyeesh ilaahay idinku dhaashay muuqaalkana sii sheer garay